السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا كوسو هذا برنامج كلن SBC TV أو إذا كمان دونا حرم سيد الكيمان برنامج كان أيوة حمان تمرتنا أحمد محمد أحمد جالة بسدوها دبعين تقحتي الصوماليات وغير أحمد جالة كوسو برنامج SBC TV. والله سمعتني كان دور. ممكن مرة راح أقرأ من السياسة لو قشر على قيمة الكيمان. mahadsanid imaantikayga Yemen waa markii saddexaad 2015 markii ay dagaaladu qarxeen halkan ayaanu annagoo saddex qof ah oo uu ku jiro jamiic ku-xigeenka hay-adda iyo ninka halkan jooga hay-adda u fadhiyo Idris Muxsin la yidhaahdo iyo aniga aanu u nimid xaqiiqa raadin dadkii Soomaaliyeed wax ku dhacay markii dagaalku bilowday xoutiyiinta afgambi dawladdii ilaa cadan ayay yimaadeen dagaal ayaa dalka ka socday dad Soomaaliyeed oo fara badan oo ilaa gaadhaya 23 ilaa 25 kun dad Soomaaliyeed oo samafalayaal ah iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo culimada ayaa u gurmaday maraakiib ayaa lagu qaaday Soomaaliya laga dejiyay markaa ka bacdi ayaan halkan u nimid xaqiiqa raadin bal dadkii maxay ku sugan yihiin sidii loo soo badbaadin karo ka bacdina warbixin baan gudbinay UNHCR iyo ayagoo deeq-bixiyaasha ayaanu u gudbinay ayaguna deeq ayay dalbadeen waxaanu ogaanay xaqiiqa raadinta inay dadka Soomaaliyeed rabaan inay halkan iskaga noqdaan oo dhibaato bini-aadamnimo iyo ku nabadgelyo xumaba ay ku haysteen markii labaad 2016 ayaan haddana markii la yidhi mashruuca hala bilaabo dib u celinta ayaan haddana imid anigoo keligay ah si aan daraasad u sameeyo sida ugu habboon dadkaa loogu celin karo dhulkooda haddaba hadda bishan 18 ayaan ka soo baxay bishan April 18 ayaan Muqdisho ka soo baxay halkan waxaan soo gaaray bisha 19 waxaan u imid barnaamijkii ilaa aan soo wadnay ilaa 2016 ilaa hadda wixii noo qabsamay habsami u socodka howlaha aan halkan ka wadnay dib u celinta marka intaas aan kusoo koobaya wixii kale inoo qabsoomay waan si daray Okay mudan maadaama aad timid wadankii ugu bursan 2015 sidee idinku suurta gashay inaad dadkan isku soo aruurisaan oo dib u celisaan horta dhibaato ayaa naftayda naga qabsatay inaan halkan nimaadno waxaan isku haleynaynay inay diyaaradu halkan keeni doonto nasiib darro markaan Jabuuti nimid waxaan ogaanay diyaarad halkan jawaadaba inay jiro waxaan isku daynay qaramada midoobay doon ay leedahay inaan raacno tiina waan weyn marka waxaan ugu kaliftay doon tan xamuulka ah oo alaab ay ku rarantahay oo halkan usoo socotay inaan iska soo raacno doontii weyn la xumaatay badda ayaa waxaan ku jiray 45 saacadood waa 2 maalmood ilaahay uu nabad keenay dadka waan raadiyay meelahay joogeen meeshan cadan waxay joogeen meel waxay ka degan yihiin meel Basaatiin xaalada qaxootiga kharas ee ugu weyn ee dalka ku taala Soomaalida ay degan tahayna waanu tagnay dadyoga kale Soomaaliyeed ee Samca jooga Xudayda Sacada Mukalla iyo meelo kale oo telefoon ayaanu kula hadalay waxaanu ogaanay xaaladooda ay ku sugan yihiin iyo sida ay u rabaan inay u soo baxaan dalkooda horiyaada markaad soo gaarteen dalkii ayaamaha dagaalada ka socday ma jira wax dhibaatooyin kala kulanteen dhanka xoutiyiinta noqdo ama dawladda maya nasiib wanaag wax dhibaato annaga naf ahaan soo gaaray ma jiro maalintaan ugu horreyseen halkan soo galay 2 qarax ayaa ka dhacay oo midna kaalishada lagu qaaday meel nasaldhig military lagu qaaday nasiib wanaag laakiinse annaga waxba nagama soo gaarin طبعا حوالي dhibaato fara badan baa jira oo hooy la'aan baa jirtay hotelkan hadda aan deganahay oo aan waraysiga lagaga qaadahayo
yaa ugu horreeyay hoteello meesha laga furo laakiinse dhib naga soo gaaray shaksiyan mayna jiro. maxaa kuu qabsanay qorshahaada maanta ku timidayna maxaana kuu qabsan doona insha allah? Okay, waa mahadsan tahay. halkan waxaanu imid inaan shaqaalihii hay-adda ka joogay hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha xafiiskooda aan tago, shaqaalihii aan la kulmo, kala hadlo waxyaabaha jira, wixii noo soo qabsoomay, dhibaatooyinka jira iyo sida loo xallin karayo, isla markaana aan tilmaamo siiyo siday hawsha kusii wadi lahaayeen. caqabade ayaa jira oo kolleyda markii hawl la qabanayo imanaya. barnaamijkan dib u celinta hay-ado fara badan ayaa qayb ka ah. waxaa ugu horeysa UNHCR oo lacagta ku bixisa, hay-adda socdaalka ee IOM la yidhaahdo, mid kaloo la yidhaahdo Intersource, annaga dowladda Soomaalida, safaaradda Soomaalida halkan joogta, hay-adda qaxootiga qaranka iyo hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka, hay-adda immigrationka ama socdaalka ee dalkan Yemen oo IBNA la yidhaahdo. intaas ayay u dhaxaysaa hawsha dib u celinta. marka intaasoo hay-adooda ka wada ka qayb qaadanaya hal barnaamij way iska adag tahay, dhibaatooyin ayaa lagala kulmaa. anigu intaan halkan joogay waan arkay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga iyo UNHCR, hay-adda IOM iyo Intersource, intaba waan arkay. waan kala hadalay mushaakilaadka ama dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed ay sheeganayaan. waxaan la soo kulmay bishan 23 isagoo qaxootiga laga dhoofinayo dekedan cadan oo ay u socdaan Berbera, 141 qof bay ahaayeen. waan dhageystay cabashooyinkii ay noo soo jeediyeen iyo waxyaabihii ay lahaayeen wayna soo gaadheen. marka si dhibaatooyinka cabashooyinkii ay ka cabanayeen ayna dib u dhicin, hay-adahaas ayaan kala soo hadlay. is-afgarad fiicanna waa isla gaar. cabashooyinka aad soo tilmaantay qaxootiga ku saabsan ma jira inay waxay ka qabanayaan UNHCR mise waa hadal isla qaad ah? waan si fiican baan uga wada hadalnay, si saraaxad leh baan uga doodnay. waayo hortiisa caanaha loogu barxayo waxaanu aanu tabanayni kalama aanan gabanin. iyaguna waxay ballan qaadeen, hay-ad walba iyaga keliyata ma aha, waxaa kamid ah IOM oo iyaduna hawsha safarka ka mas-uula, oo ah haddii dad laga soo qaadayo gobollada kale sida Sanco oo kale ilaa halkan markay ka baxaan doonta la saarayo iyaga ayaa kareeya. markii Soomaaliya tagaan iyagaa diyaarada iyo baabuurba u kareeya. marka iyo Intersource oo diiwaangelinta iyo waxa la yidhaahdo badbaadada ama protectionka qaabilsan. waan kala hadalnay tabashooyinkii wax lagaga tabanayay, iyaguna dhammaantood waxay ballan qaadeen inay wax ka qabanayaan tabashooyinkaas. Okay, qaxootiga markii halkan laga qaado oo cagta u dhigo Soomaaliya maxaa loo qorsheeyay, maxaa qorsheeya halkaas? markay dadku halkan ka baxaan waxaa sahayba la siiyaa qofkii 250. marka qoyskii 10 waa $2,500 ayay ka dhigan tahay. kabacdi markay tagaan ay Berbera ay ka degaan, wixii gobollada waqooyi iyo kuwa bari iyo aadahayana Somaliland iyo Puntland maamuladooda kuwii aadahaya gaari baa la siiyaa oo sahay baa la siiyaa, meelihii loogu talagalay ayaa la geeyaa. kuwa kale ee koonfurta usii socda meel kastaba ha ahaatee diyaarad baa lagu qaadaa, Muqdisho ayaa laga dejiyaa. Muqdisho markii laga dejiyo hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka iyo yaa ku qaabisha garoonka aadan cadde. kabacdina waxaa la keenaa xarun nasasho
oo markaas waxyaabihii waxtara loogu qabanayo waxaa lagu siiyaa telefoonno laftooda ama simkaarka waxayaa la siiyaa waxyaabihii alaabta ay wax ku qabsan lahaayeen iyo maacuuntii ayaa la siiyaa waxaa loo sheegaa in wixii lala qaban karo o dhan loola qabanaya haddii lacagti loogu talagalay in kaarka loogu soo shubayo lafta loogu soo shubayo kadibna hay-ado fara badan oo barnaamijyo kala duwan u qaabilsan oo dhammaantood samafarayaala oo u badan hay-adaha caalamiga ah ayaa gacanta dadkaas ku qabta wixii caafimaadka la aadiyaa wixii waxbarasho ah iyo wixii shaqo abuura kuwaas ayaa la aadiyaa ayaduna kormeer ay ku samaysan mudan waxaa jira Soomaali badan ku hayaan goobaha ka soo dagaal sida Sanca Taciz Xudayda dadkaas maxaa wax qabteen ama qaban doontaan waxaa weeyaan way adag tahay dhulka xoutiyiintu ay haystaan way adag tahay inay dowladda Soomaaliyeed tagto waayo xoutiyiinta iyo dowladda Soomaaliyeed xiriir diblomaasiyadeed kama dhexeeyo dowladda Soomaaliyeedna ma aqoonsana maamulka halkaa ka jira dadku waxaan kala xidhiidhnaa hay-adaha qaabilsan sida UNHCR iyo IOM iyo ayaan ku wargelinaa inay meelahaas aadaan waxaa dhacday dad Soomaaliyeed oo lagu duqeeyey badda cas wixii laga soo badbaadiyey xoutiyiinta ayaa xidhay waxaan ku guuleysanay annagoo kaashanayna hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo IOM inaan dadkii meeshii kasoo dayno halkan aan keenno waddankoodiina aan dib ugu celino haddana waxaa weeyaan dadyo fara badan ba ayaa jira haddana dhibaato kasii daran baa dadka Soomaaliyeed halkan jira haysta waxaa dhacdaa iyagoo lasoo wada xitaa inay kuwo dagaal oogayaal iyo dadaan cidna ka amar qaadanin oo dirays qaba inay dadkaas ka afduubtaan way dhacdayba dad Soomaaliyeed bay ku dhacday halkana lagu soo xidhay meel la yidhaahdo Bureeqa kabacdina safaaradda Soomaalida iyo hay-adda qaxootiga oo iskaashanay ayaa kasoo daayay dadkii waan ku guuleysanay inaan dalkoodiina si nabadgelya iyagoon waxba la gaarsiin ugu alxamdulillah dib u celinta qaxootiga waqti muxadad ah miyaa jiraan mise way soconaysaa intii dadkii ka dhamaadaan wallaahi waxay ku xidhan tahay dadka Soomaaliyeed in dib loo celiyo dad fara badan baa dalkan jooga in la celiyana waqti dheer bay u baahan tahay mashruucan kada hadda aan wadno kan ugu dambeeyo waxaa lasoo bilaabay bishii September ee kan hore 2017 wuxuuna soconayaa ilaa bisha December ee sanadka 2018 wixii ka dambeeya dee uun deeq kale waa in loo soo raadiyo laakiinse mashruucani wuxuu ku eegyahay sanadkan dabeecadiisa tiro intee la-eg baa is leedahay ayaa qaxootiga ka daadguraysan Yemen ilaa Soomaaliya ilaa 5,000 oo qof waan ka daadguraynay markaan bilownay ilaa hadda ugu dambeyntii maxaa usoo jeedin lahayd Soomaalida kuna dalkiina waxaan usoo jeedin lahaa Soomaaliya waad aragtaan dhibaatada Yemen ka taagan waddankii wuu burburay waqooyiga waxaa haysta niman la yidhaha xoutiyiin dhul buuraleey degan yihiin inay ku dagaalamaanna way ka go-an tahay gobollada koonfureed ee dowladda gacanta ku hayso dowladdii keligeed gacanta kuma hayso qoladooni goosataa iyo dowladdii dhexe iyo alqaacida iyo Daesh iyo qabaa'il ayaa isku haysta ma ka filayo in dowlad midaysan oo xoog leh oo dadkooda adeegyadii loogu talagalay u fidinaysa iyo dadkii kale kusoo biireen inay waqti dhow Yemen ay ka dhalan karayso way aad bay u adag marka waxaan leeyahay Soomaaliya ayaa aada uga wanaagsan xaaladda Soomaaliya ay ku jirto ayaa aada uga wanaagsan tan Yemen
waddan barwaaqa ayaan joognaa. waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo sidee horey loo yidhi aybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooye inaad dhulkiinii hooyo aad dib ugu soo noqotaan aamintaan idinkoo aan waxba wadanin baad halkan timaadeen qaarkiina nolol ka sameyn haddaba haddaad dhulkiinii ku noqotaan dee dadkiinii iyo walaalihiini iyo ehelkiini iyo asxaabtiinii iyo dowladdiini ayaad u tegaysaan waxaan idinku odhan lahaa dalkiina dib ugu noqo. adigoo fursadan qaaliga ka faa'iidaysanahay oo adigoo aragtay xaaladda qaxootiga Yemen dowladda maxaa fariin ahaan gaar ugu dirnay? dowladda Soomaaliyeed doorkeedii way ciyaaraysaa. annaga dowladda Soomaaliyeed safaaradda halkan joogta si xoog leh ayay u shaqaysaa. waa ambassadorka safiirkeena halkan jooga Cabdullaahi Shuuriye si fiican intuu halkan yimid aad buu u dadaalay. hay-adda qaxootigana dad baaba ka jooga halkan oo dalka keliyata Soomaaliya ka baxsan hay-addana ay ka shaqaysa. marka waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed dadaal badan ayay gelisay laakiinse dowladda Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay dadkan markii ay yimaadaan dhulkoodii hooyo in shaqo abuur loo sameeyo haddii ayna iyada awood u lahayna cidda ay inta kaalmada bixisa loogu qayliyo loo waxweydiiyo si dadka Soomaaliyeed ay mustaqbal fiican waddankoodii ugu helaan. aad iyo aad waa mahadsan. daawadayaal inta ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka kulanka SBC TV barnaamij midnimada kulmi doona waxaa idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.